halkan ayuu ka bilaabanayaa filimkeena maanta. Gabadhan waxaa lagu magacaabaa Harbar, waxa ayna ka shaqeysaa soo gudbinta muuqaalada quruxda badan ee keynta iyadoo ah Photoshop. Xayawaanada kala duwan ee ku nool keynta ay ka soo qaadaa sawirro aad u qurux badan. Iyadoo shaqadeedii ku jirta maalin maalmaha ka mid ah ayay waxay maqlaysaa cod qaylo ah, kadibna doontii ayay kasoo degaysaa. waxay imaanaysaa meesha codku ka imaanayay, laakiin waxay arkaysaa waxa aysan filayn. Waa koox arxan daran oo halkan ku dilaya qof ay kasoo afduubteen magaalada. Keliya ma dilayaan hilibkiisa ayay waxay u gogoynayaan eeyadan ay wataan. aad ayay isugu naxaysaa, wayna aamin laadahay waxay aragtay, kadibna afka ayay qabsanaysaa. isla markiiba go-aan degdeg ayay qaadatay, waxayna isku daysaa inay kaamiradeedii lasoo baxdo. video ayay ka duubaysaa laakiin iyagu ma jeedaan. mar kale ayay kaamiradii hoos la fadhiisanaysaa, waxayna ka duubaysaa muuqaalo. markii ay muuqaaladii dhammaysay, mid ka mid a eeyadoodii ayaa dareemay, kadibna waa uu qaynlaya ilaa markii dambe ay carartay. Harbar kaynta ayay soo gashay iyadoo aad u ordaysaa, kadibna doonidii yareed ay wadatay ayay dib ugu soo laabatay. waxayna doonaysaa inay meesha ka baxsato. gaarigeediioo halkan taagan ayay u timi, kadibna gaarigeeda ayay raacaysaa. kadibna gaarigeeda ayay soo kaxaysatay, waxayna soo fuushay wadada. aad ayay u naxsan tahay, waxayna ka naxsan tahay wixii aragtay, laakiin si lama filaan ayay waxay arkaysaa gaarigan daba jooga. aad ayay isugu naxaysaa, waxayna isku dayaysaa inay ka cararto, laakiin gaariga xoog ayuu ku dhaafay. waa ay soo socotay Harbar iyadoo aad u naxsan, kadibna waxay imaanaysaa gurigan. waana xaruntii booliiska ee magaalada. isla markiiba ninkii booliiska ayuu sheegaysaa, waxayna ku leedahay waxaan arkay wax aad u naxdin badan. qisadii ay aragtay ayay uga sheekaynaysaa, laakiin waa uu aamin leeyahay. isla markiiba gaarigeeda ayay dib ugu soo laabatay, waxayna isku dayaysaa inay kaamiradeedii soo qaado si ay u tusta ninkan booliiska, laakiin ma oga inuu ninkan booliiska uu la shaqeeyo gruubkan arxanka daran. isla markiiba gaarigan ayaa u yimi, waxauna qaadayaa gabadhii gaarigeedii ayaa waxaa lagu qaadayaa baabuurta gaariyaasha jiida. waa ay qaylinaysaa laakiin cid maqlaysa ma jirto. gaarigii waa uu kaxaysanayaa, uma banaana fursad ay gaariga isaga tuurto. ugu dambeynna waxaa la keenay gurigan aadka u weyn. ninkan ayaa halkan ku sugaya qoriga wata. gaariga ayaa halkan lagu soo baakimaya. Harbarna waa ay yaaban tahay, waxay fiirinaysaa afarta dhinac. ninkii qoriga haystay waa uu soo dhawaanaya, waxauna rabaa inuu gabadha gaariga kasoo dejiyo. isla markiiba gaangiskii ayay gacanta u gashay, kadibna halkan ayay soo fariisiiyeen. ninkani waa ninka booska waa gaangiskan, waxaana lagu magacaabaa Big Brother. weli gaariga ayay saaran tahay, waxaana lagu soo xareeyay howlkan. waa ay ku jejeesayeen ilaa markii dambe ay ku wada qosleen. isla markiiba baaskoolad ayay lasoo baxaysaa, kadibna way ku taagaysaa. mid ka mid ayay dilaysaa, laakiin booskii ayaa waxuu ku qabanaya xarig, kadibna dhulka ayay ku dhacaysaa. booskii waa uu xanaaqaya ilaa markii dambe xarigii si xun ugu jiiday, kadibna gacmaha iyo lugaha ayuu ka xirxirayaa. si xun ayaa loo jirdilayaa Harbar, mana awoodo inay iska celiso nimankan faraha badan. ugu dambeyn miiskan ayaa lagu soo xiray Harbar, labadeedii gacmood iyo labadii lugoodba. sigaar ayay ku dul cabayaan, waa ina ku dul raaxaysanayaan ilaa markii dambe xagga sare laga soo laalaadiyay Harbar. kadibna waxa ay ku soo xireen meeshan hoolka. isla markiiba waxay isku dayaysaa leyrka inay soo qabsato si ay dhaladiisa u jabiso, kadibna ay xarigga isaga furto. dhaladii ayay jabinaysaa, kadibna xariggii ayay isaga furaysaa. nasiib wanaag Harbar xarigga waa iska furtay, waxayna timi dhulka. mididan halkan taala ayay soo qaadanaysaa, iyadoo isaga furaysaa xarigihii lugaha kaga xirnaa. waxay dhex wareegaysaa howlkii, waxayna rabtaa inay fursad hesho si ay u baxsato. ilaa markii dambe ay banaanka timi, waa ay cararaysaa inta kanaankeeda ah. kayntan cidlada ayay soo gelaysaa iyadoo aad u ordaysaa, ilaa markii dambe gruubkii ay kusoo laabteen meeshii. waxay kasoo degeen baabuurka ilaa markii dambe ay arkeen xariggii oo iska furtay, kadibna ay baxsatay gabadhii ay halkan kusoo xireen. booskii aad ayuu xanaaqayaa, waxauna ku xanaaqayaa shaqaalihiisii. waxa uu ku leeyahay waa ina gabadhan raadisaan. Harbar weli waa ordaysaa inta karaankeeda ah, wayna ogtahay in laga daba imaanayo. intaan la soo gaarin ayay doonaysaa inay masaafo aad u dheer halkan ka tagto, laakiin isla markiiba labada nin ee mootada wata ayaa la yidhi baadi gooba. ugu dambeyn Harbar halkan ayay timi meeshan biyuhu yaalaan, kadibna biyo ayay ka cabaysaa ilaa markii dambe ay kasoo dhaqaaqday. weli waxay dhex socotaa kayntan aadka weyn ilaa markii dambe ay timi gurigan meesha cidlada ku yaala. kadibna waxay ka qaadanaysaa xargahan halkan yaala, way soo furaysaa xargihii kabaheeda ku xirxirnaa. qaybtii kalena jeebka ayay soo gashanaysaa, waa ay kasoo baxaysaa gurigii. meel sare ayay ka arkaysaa qiiqa guriga ka kacaya, waana gurigii ay kasoo baxsatay. habeenimo ayaa la gaaray. ninkani waxa uu ka mid yahay labadii nin ee boosku soo daba dhigay gabadhan si loo soo qabto. way aragtaa, wayna u soo dhawaanaysaa. Harbar waxay u soo dhawaatay ninkii iyadoo iska ilaalinaysa inuu fahmo meesha uu ka jiro, laakiin baaskoolad ayuu qaadaya, waa uuna fahmay in gabadhii ay ku ag wareegayso. cabsi badan ayaa soo food saartay ninkan ilaa markii dambe qayliyey. marka subaxnimadii la gaaray waa is qaybinayaan labadii nin ee mootada watay, laakiin Harbar halkan ayay ordaysaa. waxayna aragtay mid ka mid a inuu mootooyinkan baxsanayo. way kasoo cararaysaa, laakiin waxay samaynaysaa arrin mucjisa. xargihii ay guriga kasoo qaadatay ayay halkan ku xirxiraysaa, waxa ayna doonaysaa in mid ka mid ay ku disho. waana silig aad u adag. siliga ayay geedka ku xiraysaa ilaa markii dambe ay geedkan kale dhinaca kale ka yaala wadada ay kusii xirtay. waa ay qaylinaysaa si codkeeda u maqlo ilaa markii dambe uu soo baxsaday, laakiin markii ay soo gaadhay meeshii ay siriqda ku xirtay oo ah halkan idiin muuqataa, ayay dhulka isku tuuraysaa. nasiib wanaag mid ka mid ayay dishay, weliba si fool xun ayuu dhintay. qoortiisii ayaa dhulka ku dhacday. Harbar waxay u imaanaysaa ninkii meydka ahaa, kadibna waxay ka qaadanaysaa baaskooladii uu watay.
mar kale waa ay soo luganaysaa waxayna soo gelaysaa kaynta. ninkani waa ninkii labaad ee loo soo diray. saaxiibkii waa la dilay laakiin ma oga ilaa uu markii dambe arkay saaxiibkii koofiyadii uu watay, kadibna waa uu soo jiidaya laakiin mishin ayay u dhigtay. baaskoolada ayay caloosha kaga dhufanaysaa, isagoo dhaawaca ayay dul imaanaysaa Harbar ilaa markii dambe ay xabad afka ka gelisay. si fool xunna waa ay u dishay. dharkiisii ayay gashanaysaa iyo kabihii uu watay. booskii halkan ayuu joogaa, telefoon ayuu ku waashay waxauna wacaya labadii nin, laakiin markiiba iyada ayaa telefoon ka qabanaysaa. waa uu xanaaqay booskii waxauna gartay in gabadhan ay dishay labadii nin u soo diray. Harbar waa ay soo luganaysaa, welina waxay soo dhex qaadaysaa kayntii. kadibna waxay arkaysaa gurigan meesha cidlada ku yaala, waana guri aad u jajaban oo mar hore laga guuray. waa ay usoo dhawaanaysaa, kadibna waxa ay kasoo qaadaysaa fuustadan caaga ah. alwaaxyadii guriga yaalay ayay fuuqsanaysaa, wayna soo qaadanaysaa waxayna ka samaysanaysaa dooni yar ay ku dhaafto webiga. waa ay soo gashay webiga iyadoo aad u baqsan. ugu dambeyn waa ay kasoo baxday webigii iyo kayntii, waxay timi gurigan meesha cidlada ku yaala. way usoo dhawaanaysaa ilaa markii dambe albaabkii ay soo qaraacday, laakiin ma jirta cid ka furaysaa. gudaha ayay usoo gashay gurigii, kadibna waxay arkaysaa ninkan odayga ee halkan fadhiya. waa uu soo dhaweynayaa weliba si aad u fiican. waa ay sheekaysanayaan waxayna doonaysaa inay waxay aragtay oo dhan ay u sheegto. waxa uu ku leeyahay aniga ayaa garab ku siinaya, wax kasta aad doonaysidna waan kuu samaynayaa. laakiin markiiba gurigiisa ayay fiirinaysaa ilaa markii dambe aragtay ilbadan halkan taala. shaki weyn ayaa galay Harbar ilaa markii dambe ay soo kacday. kadibna waxay imaanaysaa meeshan oo bugaagta u dhigto. way akhriyaysaa bugaagtii waxayna ogaanaysaa inuu ninkani ka mid yahay gruubkan halista badan ee cabadhiiga bini'aadanka. isla markiiba uu soo kacaya waxa uu ku leeyahay iska dhig bugaagtan kaale halkan soo fadhiiso. waa uu ka tegaya waxa uu ku leeyahay waxaan kuu keenayaa biyo aad cabtid. isla markiiba Harbar go'aan ayay qaadatay, waxayna soo qaadaysaa irbadii halkan taalay iyadoo sun ugu shubtay ninkii odayga ahaa. intii uu biyaha ku maqnaa ayay sun uga buuxisay irbadii uu watay. waxayna doonaysaa inay si fudud odaygan u disho maadaama uu ka mid yahay gruubkan arxanka daran uu biyo u keenay. kadibna waxa uu ku leeyahay biyahan cab. isla markiiba biyihii ayay cabaysaa. cabaar kadib odaygii waxa uu dareemayaa xanuun. isla markiiba waxa uu soo qaadanaya irbadiisi si uu irbada u qaato. irbadii ayuu isku diraya ilaa markii dambe uu xanuunkii ka joogi waayay. waa uu fiirinaya gabadhii waxuuna arkayaa bacdan sunta ee halkan taala. waa uu xaqiiqsaday in gabadhani ay naftiisa halis ku tahay, sunna ugu dartay irbadiisii. odayga waa uu qaylinaya, halkaas ayuuna ku dhimanayaa. way kasoo baxaysaa gurigii Harbar, kadibna waxay gelaysaa garaashka baabuurta. mid ka mid a baabuurtiisa ayay soo qaadanaysaa, sidoo kale qorigiisa ayay soo qaadatay. waxayna soo kortay wadada. waxay doonaysaa in sida ugu dhaqsiyaha badan ay halkan ka baxsato. sidoo kale waxay doonaysaa inay gruubkan ka aarsato. waxayna u aragtaa inay halis ku yihiin nafteeda iyo sidoo kale dadka halkan jooga. Harbar magaalada ayay timi, kadibna waxay orod usoo gelaysaa meeshan gas stationka supermarketka ayay gudaha usoo gashay ilaa markii dambe aragtay ninkan booliiska. waa ninkii booliiska ayaa hadda ay caawimaada weydiisatay. isla markiiba waxay ku qabanaysaa qoriga waxayna ku leedahay isdhaqaajin, laakiin waxa uu ku oranayaa maya anigu wax dhibaato ah kuguma aan samayn, keliya waxaan ku yidhi caddayn ii keen. waxa uuna isaga dhigayaa inuu yahay nin iyada caawinaya. nasiib darro Harbar waa iska oyday, waxayna aamintay waxa uu sheegaya ninkan. kadibna waa u imaanaya ilaa uu markii dambe laabta geliyey. soo bax ayuu ku leeyahay aniga ayaa ku caawinaya. kadibna gaarigiisii booliiska ayuu soo saaray, xagga dambe ayay fadhidaa. qaybta dambe ee gaarigana waxaa ku xiran muraayad. gaariga ayuu loo gageliyey. xagga dambe qofka fadhiya awood uma leh inuu dareewal ka taabto. muuqaaladii ayay daawanaysaa, waxayna rabtaa inay tusto ninkan booliiska ah, laakiin uma jawaabayo, waanu kasii jeesanayaa. ilaa markii dambe ay aragtay ninkan booliiska inuu keenay gurigii nimankii gaangistarada waa ay qaylinaysaa, laakiin cid u jawaabaysa ma jirto. ugu dambeyn ninkii waxa uu keenayaa ninkii gaangistarka ahaa. kadibna halkan ayuu ku sugayaa. daaqada gaariga ayuu ka furaya, kadibna gacanta ayuu soo qabanayaa. xabsigeedii ayuu dib igu soo celiyey isagoo aad ugu jeejeesaya. waa u imaanaya waxauna ku leeyahay meel kasta aad martid igama baxsan doonta aniga. waxaana ku marsiinayaa mid ka mid a ciqaabaha ugu adag ee qof biniaadana la marsiiyo. baaskooladan ayuu soo qaadanaya, kadibna dibiga halkan taagan ayuu madaxa kaga dhufanayaa. sababta uu dibiga xabadda ugu dhufanaya waxa ay tahay waxa uu rabaa in dibiga calooshiisa uu geliyo. waana mid ka mid a ciqaabaha ugu adag ee la ismarsiiyo. way ooyeysaa, laakiin markii dambe mindidan ayuu la soo baxayaa. dibigii ayuu caloosha ka jarayaa, waxa uuna kasoo saarayaa uuskii. Harbar way aragtaa dhiigga dibiga ka baxaya ilaa markii dambe uu kasoo saaray calooshii oo dhan si uu iyada caloosha dibiga u geliyo iyadoo lugaha iyo gacmaha ka xiran. kadibna uu ku talo. isla markiiba irbadiyo dun ayuu soo qaadanayaa. waa ay khalkhashay, waa ayna qoslaysaa Harbar. waa uu la yaaban yahay gabadhan qosolkeeda ilaa markii dambe uu mindidiisii soo qaatay. kadibna waxa uu soo dhawaanayaa Harbar, laakiin khayaano ayay ahayd. Harbar waxay iska furtay xarigii, kadibna mindidan ayay rabtaa inay ku dhufato, laakiin waa uu iska qabanayaa ilaa markii dambe ay la heshay gacanta baaskooladii u xirnayd ninkan. kadibna waa ay ku qabanaysaa, waxa ay ku leedahay dibiga bax. dib ayuu ga soo baxayaa, waxayna isku dayeysaa inay meesha ka baxsato Harbar. iyadoo aad u ooyeysa ayay gadaal u baxaysaa, laakiin markiiba xarigan ayuu ku dhufanaya. waa uuna soo qabanayaa gabadhii, laakiin xabad ayaa caloosha kaga dhufatay. isagoo dhaawaca ayuu dibiga calooshiisii gabadhii gelinayaa. waa uu isaga baxayaa meeshii isagoo dhaawac daran ku yaalo. Harbar waxaa la geliyay calooshan dibiga, kadibna waa lagu tolay.
gaarigiisa ayuu rabaa inuu qaato si uu cusbitaalka u aado. dibigiina halkan ayuu yaalaa. harbarna isheedii waxa ay kasoo muuqataa caloosha dibiga, laakiin ma dhiman weli waa ay nooshahay. ilbaabkii ayuu ku xirayaa. ugu dambeyn ninkii gaangistarka ahaa waa uu dhintay. harbarna waxaa la keenay cusbitaalka iyadoo jirkeedii oo dhan uu isbedelay. meel kastoo jirkeedii ka mid ahaa waxaa ka kacay diirka. dhakhaatiirtiina waxa ay la yaaban yihiin ciqaabta daran ee gabadhan la marsiiyey jirkeeda, balse waa ay nooshahay, ma aysan dhiman. laakiin waa ay guulaysatay, waxa ayna dishay dhammaan gaangistaradii halkan ku noolaay oo dhan. daawadayaal filimkeeni maanta halkaas ayaan kusoo gabagabaynay. waa ku mahadsantihiin daawashada muuqaalka. waxaan si xishmad la kaaga codsanaya inaad muuqaalka like saarto. haddii ay tahay markii kugu horeysay aad channelka soo booqatana fadlan subscribe noo saar. saaxiibayaal muuqaalkii waa daawanaysaan, laakiin muuqaalkii ma lay garanaysaan. sidoo kale channelka subscribe ma saaraysaan. ma garanaya meesha aad igala dagaalsan tihiin. si aan maalin kasta muuqaalo idinku soo gudbiyo ugu yaraan maalintii 2 muuqaal, fadlan channelka subscribe saar.